wafdi ballaaran oo horkacayo musharaxa madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka Wadni Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka soo kicitimay magaalada madaxda gobolka Awdal ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay gobolka Gabiley deegaanada kala duwan ee lagu soo dhaweeyay wafdigan uu horkacay murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaradka Wadni Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa waxa kamid ahaa xunshalay kala baydh iyo magaalada madaxda gobolka Gabiley kumanaan kamida taageerayaasha xisbiga Wadni oo sita astaanta xisbiga Wadni ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Gabiley taageerayaashan oo ku jeenay qaaran calanka xisbiga Wadni oo taagnaa jidadka magaalada Gabiley isla markaana ku dhawaaqay halku dhagyo ay ku soo dhaweynayaan xisbiga mucaaradka Wadni ayaa wafdiga u soo galbiyay goob fagaara ah oo loogu tala galay in wafdigu kala hadlo taageerayaasha baa la sheegay oo la lahaa Gabiley cid bay u xiran tahay taasi miyay jirtaa waa maya waxa weeyaan Gabiley meel cid u xiran way ka qiimo badan tahay way ka daaweyn tahay Gabiley baa cid gaar ah u xiran oo kulmiyo u xiran reer Gabiley waacay ma ballan qaadaysan codkeena inaynu Wadni siino waxa weeyi Gabiley horeyna qabyaaladu ma gal maantana gali mayso saddexduba doorasho xaq bay u leeyihiin laakiin waxa la dooran kii loo arkay dabayshiisa iyo dhaqanku leeyahay inuu dalka anfacayo kaasaan anu arkay haddaan odaygii Gabiley ugu weynaahay inuu Cabdilaahi Cirro ninka Cabdiraxmaan anfacayo Cirro ha guulaysto madaxweynaha siiraanyo bedelaya ha noqdo ilaahay hay naga aqbalo dooni mayna qabyaalad dooni mayna kala qabqab Soomaaliland oo sinaataan doorana qarannimo aynu doonana qabyaaladu inama midaysa qaran Soomaaliland la ilaabayna mideeya qabyaaladu ha dhacdo damiirkeenu uu walaagsanaan jiray damqashadeenu ha fogaatee waxay naga xaaraana cod aynu leenahay in aynaan qofku nacabinaynaan siin siyaasi Habiib Diiriya Nuur oo kamid ah siyaasiyiinta xisbiga Wadni oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri qabyaaladu ha dhacdo Gabiley cidna uma xidhna cid jeebka ku sidata ma jirto Gabiley waa xor miyaad xidhantiin waxa lagu sheekeeyaa in muftaaxii Gabiley la haysto miyay jirtaa maanta is cadaysanayaan cidna u xidhnayn Gabiley taariikh dheer bay leedahay taariikhan dhulka ka lahayn bay leedahay Gabiley waa Wadni sababtu waxay tahay isbedel baa dalkani u baahan yahay godkii shalay laynaga qaniinayaynu toban goor ku noqonnay ee aynu u codaynay halkuu inagu riday waad arkaysaa walaalayaal waxaan boqolkiiba boqol hubaa anoo eegaya aqoontiinna iyo halganka dalkan u soo gasheen inaad dooran doontaan xisbiga Wadni soo sidaa maaha aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqaynaa guusha maanta aad dhaliseen mar labaad waxa inagu beeraley baynu nahay beeraleyda waxa la yiraahdaa xamarraanu ka baqanaa Soomaa xamar kulmiyo ah xamarraasi xamarri uu kacay maantu Gabiley ka kacay soo kama kicin hayna dhaaf xamarraasi waxa qaran ku dhismaa ummadda oo dhan musharaxyada dalka ka jira saddexda musharax mid reerkoogu soo saari karaa ma jiro hadduu Soomaaliland oo dhan wadan Soomaaliland ku noqonaysaa mid loo dhan yahay haddaba guushayaale Wadni baale guushayaale walaalayaal Cabdiraxmaan baan soo dhaweynaynaa isaga mustaqbalka wadanka noqonaya waxaynu ka dooranaynaa cadaalad wax qabad sinaan waxaynu ka dooranaynaa qarankeena inuu dhisno maxay loo ballanaa Wadni baa inoo ballanaa walaalayaal waxaad ku kala doorataan aqoontooda iyo barnaamijka siyaasadeed ay wadaan iyo shakhsiyadooda inta eega aqoonta haday noqoto Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro labada nin kale uu ka aqoon badan yahay barnaamij siyaasadeed haday noqoto xisbiga Wadni muddo 2 sano ku dhow ayuu barnaamijkiisa siyaasadeed ummadda u soo gudbiyay kulmiye maalin dhaweyd buu soo gudbiyay waxa lagu sheegi karin barnaamij siyaasadeed albamkiisa warada ilaa 108 sawir baa ku jiray 60 cisho iyada doorashada ku harsantay barnaamijka siyaasadeedna ku doorta waan idinku hambalyeynaya saa u doorateen ee isu garab taagteen isbedelka jamhuuriyaddu maanta u baahan tahay ka dhargimayna hadale waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba awowyaal aad iyo aad baan idin salaamayaa nin seexday oo soo toosay waakiisi xisbiga Wadni wuxuu tijaabinayaa samaan qoran oo la akhriyay oo taxan oo aynu sugayno in laga miro dhaliyo waxaynu kala dooranaynaa waa labo ma xumaantaynu joogtaynaa mise samaha iyo wanaagaynu tijaabinaa
gabagabadii halkaasi waxaa ka hadlay murashaxa jagada madaxweynenimo ee xisbiga mucaaridka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa Ambassador Maxamed Cali oo wadani waxa ku doorataan inuu dhisayo deris wanaag dadku ku wada noolaado inuu dhisayo nolol dadku u baahan yahay ee caafimaad leh ee waxbarasho leh ee biyo leh gobolku waa gobolka wax soo saarka wadani waxaad ku doorataan inuu korow mariyo wax soo saarka gobolka waxa wadani diidan yahay kala qoqob wuxuu wadani diidan yahay qabyaalad wuxuu wadani diidan yahay dib u dhaca ka muuqda dalka guud ahaanba waxaan runtii si aan la qiyaasi karin ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga gobolka Gabiley gaar ahaan magaalada Gabiley waxaan ku faraxsanahay inaan Gabiley hadda joogo oo ka hadlayo waxaan gobolkan aan ku kalsoonahay inuu yahay gobol aad u xajiyey dardaaranki Allah u naxariistay awaan Cabdilaahi Timacade oo wuxuu yiri dugsimada qabyaalada waxay dumisan mooyaan ragba waxay lahaayeen degmooyinkan iyo gobolkani عذابك كلا واقو مرتي وهم شوية وولي وكل عرنيا إن أنا قبل كان مرتكوا هاي صعب وهم كل عرنيا إن أنا قبل كان عندنا أبان وقبهني وهم كل عرنيا إلى أين كرسيني أنا إذا يقعد بلنطوني قبل كان ما شاء الله الله أكبر وعبد الرزاق أحمد هيان الكعسي Somnius TV Gabiley